بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتو هذه السلامي maanta waxaan rabay inaan idin yar tuso app si loo sameeyo app ku tusaya date-ka amaba saacadu xilligay tahay. Balse intaan taa u guda gelin waxaan rabay inaan idin yar tuso Sketchware-tan aynu apps ku sameyno inta channel ee ka hadla Sketchware-ta. Waxaa ku tusay muhiimadeeda waxaa ka mid ah in 927 channel oo kamid ah kuwa YouTube-ka ay ka hadlaan kaliya Sketchware. Si u badan yihiin badankoodu 927 kaas waxay ka hadlaan Sketchware. Fiidiyoyada laga sameeyayna waa ama fiidiyoyada Sketchware ay la socoto ee dhex yaala YouTube-kuna waa 6.4K ama 6400 baan malaynayaa oo fiidiyo. Marka muhiimadeedu waa iska arkaysin ima kala hadeen ahayn wax sidaa u sii weyn ama sidaa u sii qiimo badan waxa soo channel iyo waxa soo fiidiyoyaal la soo geliyay YouTube-ka. Inta kaliya oo fiidiyoyada Englishka ama Indianka ama kuwaas oo kale weji haddii aan idin yar tuso kuwa Carabta ee Sketchware ka hadlaana iyaguna waa 61 channel iyo 439 fiidiyo. Haddii uu guda galno app-kan maanta sameynayno waxa ugu horeeya sameynaa aynaan ka maarmin oo wax calendar la yiraahdo oo app-kan sameyn doono la xiriira. Marka way jiraan sidoo kale waxa jira website ka hadla Sketchware oo Google-ka ku jira iminka kala xanuunaya Sketchware calendar baan u baahanahay. Sketchware calendar format ama Sketchware calendar ninka la yiraahdo Sketchware help ay xaga sare kaga qoran tahay website-kiisa ayaa isna aad halkan Google-ka uga hadla. YouTube-na uu leeyahay waa nin Indiana waa soo baari kartiin. Balse waxaan uga baahanahay xawaaji iminka halkan wadarkiisina halka date-ka iyo month-ga iyo year-ka hour-ka minute-ka second-ka waxaasoo dhan calendar-ka Sketchware kula tacalluqa. Marka waa waxaan ka maarmin screenshot ayaan markaa ka soo qaadanaa iyo inta yar hoose. Marka maadaama sameyno app waqtiga la tacalluqa waxaan u baahanahay hour, minute iyo second. Haddii aan Sketchware galno waxaanu sameynaynaa app cusub. Waxaan magaciisa ka dhiganaa my clock. Marka aad my clock u bixiso app-kaaga waxaan soo saaranaysaa sawirka aad doonto. Aniga halkan igu jira sawirkaan soo saaranayaa hore ayaan soo dejistay waa kan kaas ayaan soo dhiganayaa. Aduu sawirka doonto oo u yar eeg saacad ayay soo saaranaysaa. Halkan setting-ka saan idin sheego hagaajin kartaa oo halkaas kaladhada app-ka ka bedeli kartaa kaladhada app-ka yeelanayo. Marka create my app aan odhanaa. Haddii aad u baahan tahay in uu sheego app-kaagu date-ka iyo waqtigaba waxaad sameynaysaa linear ba soo qaadanaysaa 2 linear kadibna kan waxaad ka dhigaysaa 100. waxaan sameynayaa app yar oo aan waqti fara badan qaadanin laakiin adiga app-kaaga waa mid qurux badan baad ka dhigi kartaa. background-kana cadaan baan ka dhiganaa. sidaa marka aad Samayso text baa soo qaadanaysaa waxaad dhigaysaa bartanka. si aad bartanka u dhigto waxaa ku dul dhufanaysaa linear-kii gravity oo odhanaysaa labadaas center ba sax saaraysaa oo ka sax tagay. laakiin waxaan ka dhiganaa center oo halka saraato oo ka soo saarna wad yar weyneynaysaa hada doonto yaranaysaa alla halka ikhtiyaar ku leh. Marka waxaan ku dhex qoraynaa
date markaad date ku dhex qorto halkan style code hagaajinaysaa bold baa oranaysaa text colorka waxaa oranaysaa casaan ama akhtar markaad akhtar ka dhigto text kale ayaa soo qaadanaysaa si ay isku hoos dhigmaan labada text iska rab dhigmeen waxyaalaha xagga khalad ka yimaada ka mid tahay si ay isku hoos dhigmaan linear-kaad ku dul dhufanaysaa ama bahasha weyn ay ku dhex jiraan kadibna waxaad tegi orientationkaad imanaysaa vertical baa oranaysaa waad arkaysiin way hoos dhigmeen bes kana hadda waxaan ka dhiganaa textkiisa isna bold baan ka dhiganaa bold waxa yacni khadka ku yar badi kadibna yara weyne textkana ama qoraalka colorkiisana kaa ka dhig intaa marka aad qabato sidaas like ayaad halkana ku samaynaysaa si aad dhexda u dhigto waxaan ku yidhi waxaad tegi graftiga labadaas ayaad doorani kadibna mid kalena oo soo dhigi si ay isku hoos dhigmaan waxaan ku yidhi orientationka vertical ka dhig kaa hadda waxaad ku samaynaysaa waad yara weyneynaysaa sidii kii hore halkan iyadana saasaad waxaad ka dhigaysaa khadka ku yar badi halkan iyada casaan baan imika ka dhiganaa intaa markaad qabato qoraalkaad ka bedeli waxaad ku qori time halkan sidiis leh 16 ka dhig halkana bold ka dhig text colorkana blue yes blue ka dhig waxaad samaynaysaa qoraalkaad ka bedelaysaa waa timekii weji waxaad ka dhigaysaa 0 2 oo kale 2 waayo waxaan rabnaa inuu hour minute iyo second ka halkaa ku sheego halka ciwaanku saas iska ahaanaya halkan kale date-kana waxaan ka dhiganaa Monday hakad 25 October saasoo kale ayaan rabnaa inuu nooga dhigo marka aabkeenu saas oo kale ayuu ekaanay hadhowtole haddaba waxaan odhanaa waxaad kusoo daraysaa component la yidhaahdo calendar saan marka hore waa idiin sheegay calendar waxaad bixinaysaa magaciisa waxaad doontaad u bixinaysaa anu calendar baan bixiyey kadibna halkii waad inoogu soo noqonaa activity create sidoo kale waxaad u baahan tahay componentska waxyaalaha aad uga baahanaysa jira waxaa kaloo u baahan tahay time componentska waa kuwa aad arkaysiin weji cishaan iyagana insha Allah sharaxi doonaa haduu ilaahayna gaarsiiyo on activity create baad tegaysaa componentska waxaa soo qaadaysaa time iyo calendar ba taanoo soo qaaday intaas ayaan u baahanahay iyo tagas ama qoraalkii oo isna laga dhigayo laba qoraal weliba weji haddaba intan isyar dhex dhig ama isku soo xirxir halkaasii qabasii inta aynaan ku dhaqaaqin ka hor koon ayaan magaca sawir kala sameynaynaa ka waxaan u bixinaynaa date kana ID-ga waa magaciisa kana waxaan u bixinaynaa time wii naga diiday time 2 baan ka dhiganaa oo iska caadi wuxuu yidhi magacaasi wuu jiraa saas awgeed buu nooga diiday haddaba markaad halkan timaadid waxaad u horeysiinaysaa waa timeka ayaa waxaa odhanaysaa for every 10 second after 10 second for every 10 second waxaa odhanaysaa set text and set text labada text ayaan bedelnaa marka u horeysa halka u horeysa timeka ka horna waxaad dhigi calendar get to know oo la micno ah yacni timeka noo soo qabo la taagan yahay
labada marka aad tiraahdo kana inoo soo koobiye saas oo dhex dhigi halka labada calendar oo buuxin labada text iyaga labada qoraalnood ku kala buuxin waxaad ka dhigi mid date-ka iyo ka time-ka. inta markaad qabato waxaan tegaynaa sawirkii aynu soo screenshot gareysanay. waa kan waxaan eegaynaa hadaba maxaa loo isticmaalaa sidaynu app-ka ku niri halkan adiman waa kii date-kii weeye. waxaanu dhiganaa waan niri waxa ugu horeynaya haka sidaa slash bax waa ku xigi haddana slash sabax waayo waxaanu ekeysiinaa kaas oo kale 3 ma waa la dhigaya halkana sax waad oran kadibna halka marka la eegayo time-kana iyagu iska fududiin waxaan h 2 dhibcood haddana minute 2 dhibcood haddana second. inta markaad qabato app-kaagu waa diyaar kaliya taa weyn eegaynaa inuu shaqeynayo. install my clock ayaan u bixiyay app-ka aduna waxaad doontaa bixinaysaa markasta waxaan dhan u yiraahdaa inuu ka soo xasaan idin tusay inuu app-ka halkan soo galayo halkan ayuu imanayaa oo ka my clock saacadaydii waad arkaysiin halka wuxuu nagu yiri maanta waa Monday sidoo telefoonku way noo sheegay 25 October halka hoosena wuxuu noogu sheegay inay tahay 5:09:40 marka inaad si fiican u sameysiin app-keenka qurux badan ayaan rajaynayaa apps kale fara badan insha Allah sameyn doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.